taliska ciidamada booliska dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in xabsiga la dhigay saraakiil ka tirsan ciidamada booliska kuwaasi oo loo haysto inay ka qayb qaateen dagaaladii ugu dambeeyay ee ka socday magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay. Labadii maalmood ee la soo dhaafay ciidamo ka tirsan booliska iyo militariga Soomaaliya ayaa ku dagaalamay degmooyinka Shabees iyo Yaaqshiid ee gobolka Banaadir waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh. Ciidamadani dagaalamay ayaa sidoo kale waxay kala qaateen qoryo badan taas oo keentay inay dagaal ka dhashaan agagaarka iskoosyada magaalada Muqdisho. Taliyaha ciidamada booliska dowladda federaalka Soomaaliya Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko ayaa saxaafadda kula hadlay magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in ciidamo ka tirsan dowladda iyo saraakiil ciidan loo xidhay isku dhacyadii ugu dambeeyay ee ka socday magaalada Muqdisho. Waxa uu taliya Bashiir Ameeriko digniin u diray ilaalada madaxda dowladda waxaanu sheegay in lagula xisaabtami doono dagaalada dhex maraya ciidamada ilaalada u ah iyo kuwa howlaha ka wada iskoosyada magaalada Muqdisho. Markii magaalada Muqdisho ay ku wada dagaalameen ciidamada dhexdooda ayaa khasaare ugu badnaa waxa uu ka soo gaadhay dadka shacabka ah ee ku sugan goobta ay isku dagaalamayaan labada ciidan waa ciidanka booliska Soomaaliya iyo kuwa militariga. Sidoo kale taliyaha ciidamada booliska dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in saraakiisha kale uu kula dardaarmayo inay xakameeyaan waxyaabaha shacabka ay u geysanayaan ciidamada ilaalada u ah iyo kuwa la dhigay xarumaha iskoosyada magaalada Muqdisho. Toddobaadkan magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay 3 dagaal oo u dhaxeeya ciidamada booliska iyo kuwa militariga Soomaaliya waxaana ka dhashay khasaare gaadhaya dhimasho iyo dhaawacba. ناصر عبد القادر عبد الوهاب ناصر تلسمي بدعس 24 TV مقالة دارقيسا.